waxaa la xaqiijiyay ilaa iyo dad ka badan 5 ruux inay ku geeriyoodeen kadib qarax ka dhacay isgooska siidka oo ah barta laga ilaaliyo iridka madaxtooyada waxaa sidoo kale la xaqiijiyay dadka geeriyooday in ay ku jiraan qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda oo rabay in ay gudaha u galaan isla markaana ay rabeen inay ka gudbaan bartan lagu baaro gaadiidka u gudbaya dhinaca madaxtooyada goobtan ayaa ahayd meel ay ilaalada madaxtooyada ay ku hubiyaan gaadiidka raba inuu u soo gudbo dhanka madaxtooyada ilaa iyo 5 gaadiid oo nooca raaxada ah ayaana goobtan ku gubatay kuwaas oo sugayay inay ciidamadu hubiyaan kahor inta aysan ka gudbin bartan lagu baaro gaadiidka qaraxan ayaa sidoo kale waxa uu saameeyay dad shacab ah oo marayay wadadan waxaana sidoo kale goobta ku gubtay ugu yaraan 2 gaadiid oo ah mooto bajaaj waxaa la xaqiijiyay ilaa ay dad ka badan inay ku dhaawacmeen 10 ruux sida ilaamaha ammaanku noo sheegeen qaraxan waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee dhaca sanadkan cusub ee 2020 welina ma jirto mas'uuliyadda qaraxan cid si rasmi ah u sheegatay sidoo kale ilaamaha ammaanka ayaa u diiday gaadiidka gurmadka degdega ee Amin Ambulance in ay tirada rasmiga ah ay wax ka soo gaartay qaraxan ila wadaagto saxaafadda waxaa sidoo kale warbaahinta loo diiday in ay gudaha u galaan goobta uu qaraxa ka dhacay maxamed bulbul Universal TV Muqdisho